بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. walaalayaal waxaan doonayaa maanta in aan idinla wadaago xoogaa yar oo ku saabsan hadduu alla idmo magaca allah waa mucjisada magaca allah iyo kitaabkeena qur-aanka kariimka ee lagu soo dejiyey nabigeen maxamed ahaa badbaaday naxariis dushiisa ahaatee. hadda kahor waxaanu ka soo sheekeynay ama kilibkii hore waxaanu uga soo sheekeynay mucjisada aadaanka salaada ayaan ugu soo sheekeynay. waxaan soo sheegnay in aadaanka uu ku bilowdo magaca allah subxaanahu wa tacaala oo ah allahu akbar uuna ku dhammaado sidoo kale magaca allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhammaado ayaan soo sheegnay, iyo kelmadda allah oo ah magaca ilaahay kana mid ah 99 magacee allah uu leeyahay ee asmaa alxusnaa in ay ku soo aroortay eedaanka 16 jeer. marka maanta waxaan rabaa inaan idin ifiyo magaca allah subxaanahu wa tacaala waa allah oo 4 xaraf ka kooban inta jeere ay ku soo aroortay qur-aanka iyo mucjisooyinka ee magaca allah uu xambaarsan yahay. magaca allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku soo arooray kitaabkeena qur-aanka kariimka 2699 jeer. lambarkaana waa lambar kisi ah, ma aha lambar dhaban ah, marka uma qaybsamo lambarada kale ee xisaabta sida 2, 4, 6 uma qaybsamo isaga lafsadiisa mooyaane. haddii aad rabto inaad qaybiso waa in aad u qaybisaa 2699 ama inaad u qaybisaa 1. marka mucjisada halkaa ku jirtaa waxa ay tahay marka allah subxaanahu wa tacaala magaciisa marka uu ku soo arooray kitaabka qur-aanka kariimka 2699 jeer ee uu u doortay tiradaasi, macnaha waxay tahay allah in uu nagu leeyahay anugu waxaan ahay waaxid laa taaniya lii, waxaan ahay alle keli ah oo mid labeeya uusan jirin. ruux kaloo ama axad kaloo xaq lagu caabudana oo ka sokay allah subxaanahu wa tacaala inuusan jirin isaga mooyaane. taasi waa mucjisada koobaad ee magaca allah subxaanahu wa tacaala ee uu ku leeyahay qur-aanka qur-aankeena kariimka ah ee nabigeen maxamed ah salawatullahi wasalaamu caleyh lagu soo dejiyey. bal marka aan aragno sida ay isu waafaqayaan nidaamka allah subxaanahu wa tacaala ee uu u sameeyey koonka ee uu ku qotomiyey ama saldhig uga dhigay lambarka 7 iyo sida ay isu waafaqayaan kitaabkeena qur-aanka kariimka. allah subxaanahu wa tacaala sida ku cad aayaadkiisa ama kitaabka qur-aanka kariimka wuxuu dusheenna ku abuuray 7 samood, dhulkana sidoo kale. wuxuuna kitaabkiisu inoogu sheegay allahu aladii khalaqa 7 samaawaat. allah waa alladii allihii abuuray khalaqa ee abuuray 7 samaawaat 7 samood ayuu abuuray allah. wa min alardi arla xaggeedana midlahunna tiradaa mid la mid ah, macnaha dusheennan wuxuu dhigay 7 samood, dhulkana wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu ka sameeyey 7 laka ayuu ka sameeyey uu noogu sakhiray marka nolosheen inaanu kala soo baxno webiyadii, socodkeennii, mirihii, beerihii, wax waliba waxaan u baahnayn, dunyadii inay cunto, waxaas oo dhan. waa cajiib. allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale ifka nooga imaanaya waa marka koonka abuuraya ifka nooga imaanaya xagga qoraxdana
waxa uu ka dhigay 7 oo waad arki karaysaa haddii aad bikaaco ku ururiso ama weynaysa aad ku eegto cadceedda 7 kalar ama 7 midab ayaa kaaga soo baxay halkaas. xuubka ayaan ku dahaaran jirkeenna waa xuubkan ku dahaaran jirkeennana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay 7 lakab bixikmatihi wa cilmihi. xikmaddiisa iyo cilmigiisa ayuu allah subxaanahu wa tacaala uu ku fariisiiyey. sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala naarta jahannama waxa uu sameeyey 7 ilin oo ay ka galayaan ahlu naarka ay ka galayaan. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku yidhi lahaa 7 abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsuum. lahaa naartu waxay leedahay 7 abwaabin 7 iridood ayay leedahay oo mid kastaba cid ay ka galayso oo loogu talagalay. sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala dawaafka muslimiinta ay ku dawaafayaan beedka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sareeyey tiro ahaan ama dawaafku wuxuu yahay ama wuxuu ku dhammaystirmayaa 7 wareeg. cajiib. sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala ruqyada sharciga ah ee kitaab ku soo aroortay ee aanu isaga difaacayno shaydaanka iyadana waxay ka koobantaa 7 xaraf ayay ka koobantaa. qaansaroobaadka ee aynu ku aragno samada xilliyada roobabku ay da'ayaan haddii aad u kuur gasho si wacan aad u eegto oo si dhab aad u eegto midabadu ay ka koobanto oo muxuu ahaa qaansaroobaadka midabada ay ka kooban tahay waa 7. allah subxaanahu wa tacaala ayaa sidaasi ka dhigay awooddiisa iyo xikmaddiisa iyo cilmigiisa ayuu uga dhigay taasoo innaga uu noogu sakhiray wax waliba si ay noogu fududaadaan. haddaba aan eegno markaasi qur-aanka kitaabka qur-aan kariimka iyo sida arrimahaasi ay isu waafaqayaan. markaa aanu eegno magaca allah subxaanahu wa tacaala marka aad u kuur gasho kitaabka qur-aan kariimka waxa uu min 7 jeer uu ku jiraa 7 suuradood. xagga suwarka ama suuradaha markaad eegto magaca allah 7 ka mid ah suuradahaasi ayaa wuxuu ku soo arooray min 7 jeer ama lambarka 7 oo la laba jibaaray ama 3 jeer ama 4 jeer sida soo socoto aan idinku sheegi doono. balse aan soo qaato tirada iyo suuradaha 7 ah. waxaa ugu horeysa suuratul maa'ida. magaca allah wuxuu ku soo arooray 147 jeer ayuu ku soo arooray taasoo micnaheedu uu yahay 21 jeer oo lagu dhiftay 7 markaa ku dhifato waxaa kuu soo baxaya lambarka ah 147 ayaa kuu soo baxaya. marka suuratul maa'ida magaca allah wuxuu ku soo arooray 147 jeer oo la micno ah 7 oo 21 jeer laba jibaaray. waa suuradda koowaad. suuradda labaadna waa suuratu naxl. magaca allah subxaanahu wa tacaala waxaa ku soo arooray 84 jeer ayuu ku soo arooray taasoo la micno ah 17 oo lagu dhuftay 7 mar waliba 7dii way taagan tahay. marka waa 7 oo ilaa iyo 17 jeer lagu sii dhiftay. suuradda xigtaa waa suuratul cankabuut. magaca allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku soo arooray 42 jeer 42 jeer ayuu ku soo arooray taasoo micnaheedu uu yahay 6 lagu dhiftay 7 micnaha 6 jeer ayuu ku soo arooray magaca allah subxaanahu wa tacaala oo 7 lagu dhiftay 6 oo markaa 6 jeer laba jibaar 7dii 6 jeer laba jibaaray. waa gartay. suuradda ku xigtaa waa suuratul mumtaxina. magaca allah wuxuu ku soo arooray 21 jeer taasoo la micno ah 3 oo lagu dhiftay 7
suuradda kale waa suuratu lmunaafiquun magaca allah wuxuu ku soo arooray 14 jeer oo la micno ah 2 jeer waa 2 oo lagu dhiftay 7 suuratu nuux iyo suuratu lmuzammilna magaca allah waxa uu ku soo arooray min 7 jeer marka magaca allah subxaanahu wa tacaala kitaabka qur'aan alkariimka 7 suuradood ayuu ku soo arooray min 7 ama 2 jibaarakooda waa suuratu lmaa'ida suuratu الnaxl suuratu alcankabuut suuratu lmunaafiquun suurat nuux muzammil iyo mumtaxina cajiib waa kee filosoofka ama qoraaga awooda maanta magaciisa kitaab inta uu sameeyo oo sidaas u qaybiya oo sidaas ku fariisiya kana dhiga magaciisa magaca ugu faraha badan ay ku soo noqnoqonaya waxay la tahay inaanu jirin haddii aadanaha uu isku dayana uuba ka caajisayaa ilaa khuliqa alinsaanu daciifan ayuu kitaabkeena yidhi khuliqa waa la abuuray alinsaanu daciifan mid iska taag daran inuu yahay waa sideenaan u taag darannahay marka awoodda ilaahiyan allah subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa iyo cilmigiisa ayuu sidaas ugu fariisiyey suuradihii haddii aan ka nimaadno oo xagga bogaga aad weydiisaan safxadaha kitaabka qur'aanulkariimka waxaa ku jira 49 safxadood ayaa ku jira 49kaas safxadood min 7 jeer ayuu ku soo arooray magaca allah min 7 jeer ayuu ku soo arooray magaca allah haddii aad baarbaarto safxaadkaasina oo aad tiriso oo aad bogbog u eegto waad arkaysaa ama numberka tirakoobta muxuu ahaa qur'aan kariimka ayaad computerka intaad ayr u geeliso ayaad ka helaysaa haddii aan tusaalahan kuu soo qaado safxadda 11aad ee kitaabkeena qur'aan kariimka magaca allah wuxuu ku soo arooray 7 jeer haddii aad eegto safxadda 18aadna magaca allah wuxuu ku soo arooray 7 jeer waad eegi karaysaa hubi oo sax haddii aad eegto bogga ama safxadda 26aadna sidaasi la mid ah oo 7 jeer ayuu ku soo arooray magaca allah haddii aad eegto bogga 29aad magaca allah waxa uu ku soo arooray 7 jeer haddii aad eegto bogga 34aadna waxa uu ku soo arooray 7 jeer haddii aad eegto safxadda ama bogga 40aadna magaca allah waxa uu ku soo arooray 7 jeer haddii aad eegto bogga 42aadna magaca allah wuxuu ku soo arooray 7 jeer haddii aad eegto bogga 43aadna magaca allah wuxuu ku soo arooray 7 jeer haddii aad eegto bogga 47aadna magaca allah wuxuu ku soo arooray 7 jeer haddii aad eegto bogga 94aadna magaca allah wuxuu ku soo arooray isna 7 jeer haddii sidoo kale aad tirido bogga 52aadna magaca allah wuxuu ku soo arooray 7 jeer bogga 6aadna sidaas si la mid ah 7 jeer ayuu ku soo arooray wahaakada aduus waxaad ka tirsanaysaa 49 safxadood taasoo la micno ah 7 markii 7 lagu dhifto lambarka kuu soo baxay muxuu yahay waa 49 cajiib cajiib magaca allah subxaanahu wa tacaala 7 jeer ayaa lagu xusay waa xagga aayadaha 7 jeer ayaa lagu xusay xagga aayadaha waa aayaddaas waa aayadda 20aad ee suuratu lmuzammil haddii aad akhridana waa bahelaysaaba ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min ثuluثi اللayl wanisfihi waثuluثihi waطaa'ifatu min alladhiina macaka wallahu yaqdiru اللayla والnahaara wallahu ka bilow علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ولا تقدموا أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا إن الله غفور رحيم. آية 20 سورة المزمل كجرته أيوم مقع الله وكسو أروري 7 jeer حق سورة دي واسو شيغني حق بوجي واسو شيغني xagga safxadihii ama bogagii waan soo sheegnay xagga suuradihiina xagga aayaadkina
waxaan soo sheegnay in aayadda 20aad ee ku jirta suuratulmuzammil in magaca allah uu ku soo arooray 7 jeer. xagga qaabka ama siiqada ama dhawaaqa ee magaca allah qaabka loogu dhawaaqo isna 7 jeer ayuu allah ku fariisiyey oo ku soo aroortay kitaabkeena qur-aan kariimka. 7daas maxay kala yihiin marka? 7daas siiqadood ee allah subxaanahu wa tacaala ama 7 nooc 7da nooc magaca allah subxaanahu wa tacaala ugu soo arooray kitaabka qur-aan kariimka maxay kala yihiin marka? waa allah oo kow ah, billaah oo 2 ah, fallaah oo 3 ah, falillaah oo 4 ah, lillaah oo 5 ah, abillaah oo 6 ah, iyo tallaah oo 7 ah. 7daas nooc ayuu magaca allah subxaanahu wa tacaala ugu soo arooray kitaabkeena qur-aan kariimka. ma jira filosof ama abwaan ama curiye qaabkan wax u samayn karaya. waxay la tahay in mucjizooyinka qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala in ay aad u fara badan yihiin, qof samayn karaan inaanu jirin. bal aan eegno suuradda ugu horeysa magaca allah uu ku jiro ee kitaab qur-aan kariimka iyo midda ugu dambeysa ee uu ku jiro magaca allah subxaanahu wa tacaala aan fiirino iyadan. suuradda ugu horeysa ee magaca allah lagu arkayo ee kitaabkeen qur-aan kariimka waa alfaatixa, waa suuratu alfaatixa. suuradda ugu dambeysa ee magaca allah uu ku jirana ee kitaabka qur-aan kariimka ugu dambeysa ee magaca allah uu ku jirana waa suuratu likhlaas, qul huwa allahu axad. haddaba aan fiirino markaa bal nidaamkii 7da ahaa, lambarkii 7da ahaa inay waafaqeen iyaguna in kale. alfaatixa imise xarfood ayay ka koobantaa? alfaatixa waa 7 xarf. subxaan allah. bal alikhlaasna aan fiirino imise xarfood ayay ka koobantaa? al-ikhlaas waa 7 iyadana. haddaba maxaanu ku oranaynaa marka kuwa ka shakiya mucjizooyinka kitaabkeena qur-aan kariimka? maxaan ku dhahaynaa marka iyagu? ma jira aadami sidaan oo kale wax u samayn kara, isugu hagaajin karaya ma jira. kallaa kallaa hay-ahaatay ka tahay ma jiro. alkhaaliq alcaziim, khaaliqeena kor ahaaday waa uu ka run sheegay markii kitaabkiisa qur-aan kariimka uu ku lahaa acuudu billahi min ashaytaan الrajiim bismi illahi الraxmaan الraxiim alif laam ra kitaabun uxkimat aayaatuh ثuma fusilat min ladun xakiimin khabiir. waa kitaab la xakameeyey aayaadkiisa oo wax isbeddel aanu ku imaanayn oo alla uu xifdiyey. inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun, oo cid wax ka bedeli kartaa aanay jirin ilaa an yarita allahu alarda waman calayha, ilaa inta uu ka dhexlayo allah subxaanahu wa tacaala arladan aan ku noolnahay iyo koonkan iyo waman calayha wax dhexdooda intaba, wax dusheeda ah intaba. walimaada alla muxuu noogu soo dejiyey kitaabkan marka? ilaahay wuxuu noogu yidhi anlaa tacbuduu, liajli anlaa tacbuduu in aydan caabudin dadkaanow ila allah, alla mooyaane. anlaa tacbuduu ila allah, inaydan caabudin cid kale alla mooyaane. marka walaalayaal intaas ayaan kusoo gaabinayaa mucjisooyinka magaca allah subxaanahu wa tacaala ee ku soo arooray kitaabkeena qur-aan kariimka, iyo allah subxaanahu wa tacaala sida koonkiisa markuu abuurayey uu u qotomiyey ama saldhig uga dhigay lambarka 7, iyo lambarka 7 sida ay isu waafaqeen aayaadka suuradaha kitaabkeena qur-aan kariimka intaba. ilaahay hana waafajiyo khayrka meel kastoo aad joogtaanba. ummadda soomaaliyeed dhibta allah ka qaado. marka waxaa jira maalmahan oo soo baxbaxayay dad iyagu muxuu ahaa
ku hadaaqaya in axkaamta ku jirta kitaabkeena qur-aan kariimka iyo waxa amaro ah ee allah subxaanahu watacaala uuna faray oo ka mid yahay muxuu ahaa ay ka mid yihiin muxuu ahaa ixsaan falida, allahu mustacaan, in laysku xukumo kitaabka alleh, allahu mustacaan, barul waalidiin in laga shaqeeyo, allahu mustacaan, musaawaadka bayna arajul walmar'a, allahu mustacaan, xijaabka, arrimahaas dad waxaa jira oo soo baxbaxayo wax ka sheegaya oo isugu jira soomaaliya ajaanib intaba. waxaa jira oo kale nin soomaali waa maqlay ayaan dhaweyd, waxaa jira oo kale nin oo isna mufakir ah oo mufakir islaami lagu sheegayo oo tunis u dhashay. ma jeclaada markaan magaciisa inaan xuso, laakiin se waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu alla idmo kilibka ama muuqaalka soo socda ayaan kusoo qaadi doonaa, kaasoo yiri xijaabka waa jiri jiray waagii yahuudda, ummadihii hore waa jiri jiray, griigii romankii waqtiyadaas waa jiri jiray, laakiinse wuxuu yidhi waxaa loo adeegsan jiray oo keliya in lagu kala saaro, ayuu yidhi, dadka cabiidka ah, dadka addoommada ah iyo kuwa xorta ah in lagu kala saaro. bal fiiri ninkaas oo sheeganaya inuu islaam yahay sheeganaya, wuxuu yidhi waa tusaale ugu fiican, isagoo hadal ma xishoonaya, wuxuu yidhi waa tusaale ugu fiican. waayo wuxuu yidhi marka aad fiiriso masar waagii kaltuum ay haysaysay waqtiyadaas, wuxuu yidhi marka ay yimaadaan gabdhaha masaarida ah ee ay kasoo qeybgaleen, haweenka masaarida markay kasoo qeybgaleen xafladaha iyo madax muxuu ahaa ma aysan sidan, muxuu yidhi ma xijaabnayn buu yidhi, oo waxay iska ahayd muxuu ahaa marka xijaabkan wuxuu iska soo baxay yidhi toddobaatanaadkii waxaas. war allahaaga hallamaya, war xijaabka nabigeen maxamed salaatu wasalaamu caleyh aayaadkii lagu soo dejinay ayuu ka mid ahaa, wuxuu ka mid yahay kitaabkeena qur-aan kariimka ayuu ka mid ahaa. ma fahamtay? wuxuu ka mid yahay waxyaabaha wanaagga ee allah subxaanahu watacaala ee uu faray addoommadiisa muuminaadka uu faray. wuxuu ka mid yahay daaco ka mid ah ama cibaado ka mid ah cibaadooyinka allah subxaanahu watacaala uu faray gabdhihiisa. marka waa qayb ka mid a cibaadada sida salaadii, soonkii, sadaqadii, waxaayo. marka gabadha hadday is asturto, allah subxaanahu watacaala wuxuu siinayaa ajarkeeda ayuu siinayaa. marka man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha. marka hadda waxaa la sheegaya in kitaabkiisa hadda mar dhow uu ku fasirayo luqadda faransiiska. marka waan ka digayaa insha allahu tacaala weliba dadka qurbaha ku nool oo ciyaalkooda qurbaha joogaan, marka ay kitaabadaas oo waxyaabahaas afkaartaas oo kale lagu qoro muxuu ahaa lagu qoro afafka ajaanibka ah, ilmaha yareera iyagoo aan weli korin muxuu ahaa waxaa laga yaabaa inay iska qaataan. marka waalidiinta waxaan leeyahay ha lagu dadaalo, ciyaalka ha lagu dadaalo. culimadana in badan waxaan farayaa insha allahu tacaala in asaasiyaadka waxyaabaha saldhig u ah diinta islaamka in ummadda ay u sheegaan haddii alla yidhaahdo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh.